الناجحة أو الداعي الناجح tilmaamaha ama calaamadaha uu leeyahay ninka daaciga guulaystay runtii su-aasha isweydiinta leh waxay tahay guusha dee maxaa lagu qiyaasayaa ma dadka tirada badan leh raaca ma in dowladu qabsado yani ma miqyaasu najaax waayo dadku qofku hadduu suuro najaaxa marka hore u sii haysto wixii aan suurada ahayn wuxuu arkayaa inaanay ahayn dacwa naajixa nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inooga warramay nebiye aakhiro iman doona iyadoo aan cidi la socon mid qof la socdo mid laba la socdo maxaynu ku tilmaamaynaa ambiyada dacwadoodii ma dacwa faashilaba mise waa dacwa naajixa idan ma huwa almiqyaas markaynu dhahno dacwaddani way guulaysatay miqyaaska aynu ku qiimaynayna ama waxa aynu saarayno instrumentku waa waxa ugu cajabta badan leh qoladan technology-ga isticmaasha oo haddaanad instrument aad wax ku qiyaasta haynin waxaagu qiyaastiisa lama garan karo marka dacwo naajixa markaynu dhahno maxaynu ku qiyaasaynaa si kooban waxaan odhan karaa uun daaciga naajixa waa kii raacay ambiyada sunnadoodii alambiyaa هم الدعاة ناجح يوم بقى ويودتك إلهي أدورتي سبحانه وتعالى إن الدعوة تنحباران نبي فاشل نمجره أنبياء دي إلهي صدر ودمي وأنبياء ودقولي ستي هذا ما كانوا لأن الداعي الناجح صفات كي سمحون نقونا يوحن بين نقونا بعض صفات الأنبياء في كتاب الله إنه تلمامه waxyaabaa ilaahay subxaana wa tacaala uu kitaabkiisa ku sifeeyey ambiyadaasi ila iyagaa ah qaadatu lumma iyagaa ah hoggaankii dhabta ahaa ee ummadda muslimiinta ah iyagaa ah dadka najaaxooda uu ilaahay kitaabkiisa uu ka warramayo dhowr qodob oo markaa aan isku xidhnayn baan idin tilmaami doonaa qodobka koowaad aan odhan karnaa waxa weeyaan ducaadaasi ambiyada ah waxa calaamad u ahayd koow dadka inay khaaliqooda ugu yeedhayeen dadka cidda loogu yeedhayo inuu rabbi ahaa subxaanahu wa tacaala meel ka sokayso ay ummadda ugu baaqayeen inaanay jirin saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay isagoo nebi maxamed amraya calayhi salaatu wasalaam qul haadihi sabiilii adcuu ila allah كان واجدك لكن جدك محاو على مضى إلهي بندتك ويري على بصيرة أنا ومن اتبعني أنا جاي أنت الراعي ضيبا أنا بصيرك السجن دتك وحن ويرينا إلى الله سبحانه وتعالى إذا دتك ملك السكيسين لو حرم معها قفك مسلم كي مركو دتك ويري خلافة لسوء علنية هي الدولة بعد اسمان السيء وعسوا أهداف الصورة asalku waxa weeyaan dadkan in loogu yeedho ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyada waxa loo soo diray waxa weeyaan dadkan inay ugu yeedhaan adcuu ila allah udcuu ila sabiili rabbik baa ilaahay yidhi waman axsanu qawlan miman dacaa ila allah yaa ka war fiican baa ilaahay yidhi ka dadka ugu yeedha alle subxaanahu wa tacaala idan waxaan leenahay awal simma min simmaat دعاء الناجحة علامات كذا كواد وحويان ضدك إلهي بيويريا سبحانه وتعالى وحكالو يقول واقعيا ضدك ما تشيله شيء الله بعد أن تلمام يا وحويان أي دعاء داسلهاية أكتوده آخرة كالدور مضميت أدونك والإثار بالآخرة على الدنيا قرآنكم مركا دايكتا إلهي النبي هذا مركو كور رمي وحقوت المام يا نبي كالصالح وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله وح أجر إذن ويديسن مايا نبي ولبا وحا اللي يلبا حتى هذا سيدادتك كله وح أجر إذن ويديسن مايا دعوة النجاح هذا مركا وح موضة qofku marka uu aakhira u tahay hadafkiisa
wax ka sokeeyo uu raadcaynaya marka aanay jirin marka uu dacwadiisa uu arkaya abaalmarkeedu inuu yahay aakhiro inuu guulaysto aakhiro inuu badbaado naar inuu ka fogaado janno inuu helo markuu kaayi marka nebi waliba fi suurat ash-shu'ara markaad akhrido nebi waliba fattaqu الله واطيعون مركو إلى هذا محوك حكسيني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الثانية حيكو صلى سنة دولة قالي أنصاري ويوتمي يقول إلهي رسولك سبر الرمية ما لتأخر waxay yiraahdeen naraac annaga ku ilaalinayna waxaanu naftayada iyo maalkayaga iyo ehelkayaga iyo dadkayaga saan u difaacna si lamida ayaan ku difaacina bayda ilaahay rasuulkiisiyo idan diintan baanu difaacina bay leeyihiin markay taa aqbaleen ayay waxay yiraahdeen anana maxaanu leenahay nabiga alayhi salaatu wasalaam muu ku odhan aniga dabaday baa madaxnimada qaadanaysa wasiirra noqon doonta dawlad islaamiga oo lagu baraaro oo barwaaqo badan baa heli doonta dawladda waxaan qaban doonta saasa heli waxa kuma oran nimankan la nafiya maalba waa nuhurayna wuxuu ku yiri walakumul janna nabiga alayhi salaatu wasalaam markay yiraahdeen maxaanu leenahay annagu markaanu diintan u halganno ee ku ilaalino iyagoo garanaya waliba baycada markay galayeen ay barkood baa lahayn warbalukaadiya hadda carab oo dhan baa meel qura kaga soo wada ridi doonto waranka oo waa la idin la wada dagaalami doonaa wixii iyaga loo ballan qaaday waa maxay waa walakumul janna idan daaciga naajixa waa daaci janna raadinaya daaciga naajixa waa daaci ay adduunyada kala door bidantahay ama ka mudan tahay adduunkiisu akhridiisu ay ka mudan tahay saa awgeed diinta faafinteeda hunguri laguma dalbo xoolo laguma qaato hadday ku soo galaan waa walilaahi alxamd bale culamada badh baa waxay dhahdaan in guusha adduunka la gaadho oo dhami waa qayb ka mid ah qofka saalixa camalkiisa loo soo horumariyay camalkaagii wax ka mid ah adduunka lagugu siiyey ayaa lagu tilmaamay muxuu tilmaamayeen markii Mus'ab ibn Umayr uu dhintay ee uu shahaadada helay ee uu la waayay wax lagu kanfo ee maradiisii marka madaxa la saarana caguhu muuqdaan marka cagaa loo saarana madaxu muuqdo saxaabiga ka warramay wuxuu lahaa deewiyagu waxay ahaayeen dad wuxoodii oo dhan ilaahay aakhiro oo ugu dibdhigay muu soo gaadhin guushii muslimiinta dambe iyo saxaabadii dambe milyaneeray noqdeen غنايم baa la helay xoolaa la helay ألف markaad kutubta akhrido dhaxalku ka tagay hebelyan dhaxalku ka tagay waa millionaires ألف waa milyan ويا في عربية ألف وحكة بدني كم يشيل ترى يا عربتي تغني سادر ألف يا ألف لا استبعد جاوب وهانجري مليونير كانوا ما رياضة نحسبين وصاب حي مليون يا بليون يا قوة كان في عربية ولا كم يشيلون صحابة تبي مليونير رين لكن أصلك كما هاي أصلك وحها ولكم الجنة سيدا وجد أنبياء آخره كدور بدايين دونك إلى هنا القرآن كوحنا نقول المامية وحيدك كورنا نقول الدردار ما ينايتاهي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى تاسبا إلى هاي آخره لقد دور بدو دونك آخرة ضدك اللوجهيو أيها وحي لفي الصحف الأولى ها صحف إبراهيم وموسى نبي دي هرنا وحي الله شاقي كاسوها إذن أيها الأحبة داعي الناجح وكم مقياس كيسو يهي وحن محنا أجر كهلية وكم مقياس كيسو يهي إلهي الرالي ما يغن قنية يمكن مقاييس بدن بصوب بحضو عصوبة
dadku inta uu dheef helayo maadiya ayuu ku xisaabtamaa dadku intuu dheef maadiya helayo ayuu ku xisaabtamaa waxaana laga yaabaa haddii aad dheefta maadigii noqoto waxa uu qof ku xisaabtamayo ama se dadka aad diinta ugu yeedhaysaa ay u arkaan inay shaqo kuu tahay warkaagu dhegta xoog u geli maayo waydi nin xoogsanayaa lagu arkaa ninka xoogsanaya waa nin xoogsanayu soo maaha wuxuu doonayaa ku xoogsanaya haddii loo arko diinta aad sheegaysaa in waxa ka dambeeya uu yahay xoogsi imaam baad oo mushaar baad ku qaadataa macallin quraan baad oo mushaar baad qaadataa macallin jaamacadeed baad oo mushaar baad hadday dadku suuradda u arkaan dee waxay arkayaan nin shaqooyinka ka mida la qabanaya kama warramayno dee dadku ileen lama odhanayo baktinaya haddii aan cidiba wax siinaynin haddaanu baytimaalba jirin laakiin waxaa ka qurux badan qofku arsaaqdiisa inuu meel kale ka helayo diintiisana uu sideeda u faafinayo taasaa waxay dadka dhagahooda ka geli og tahay markay u arkaan inaad luqmadaada ku xidhan tahay walidaalika baa nebi waliba wuxuu dadka la lahaa beri ka noqo inaad waxba ka rabin إلا مركا لا يقول ده إلهي مركو النبي كو يدادو وما أسألكم عليه من أجر كل مركا الله يدادو معناه ده وحويا بركة نقو ودتك فهمسي وحبا ينادو كربين وحوده أدون كودا ينات ربين مدحني مدودا ينات ربين وحي دتك الدونة يانو دينات الدونة هذا دتك كوا كان من سياسي كرسي كصعدا وناتاي دين تنا أتوضينات كرسي كدونة يسو dee waxay ka agtooda aad la mid tahay kan kale ee siyaasigeeda isna kursiga raadinayo isagu keeba xaq ku taagan iyo baabka ninkan eegi maayo ee wuxuu ka dhex arkaa xuduud nafsi inay meesha ku jirto xad nafsi iyo dadku raadaynaya inay meesha ku jirto idan wax leen dacwatu al-anbiya waxay caan ku ahayd inay aakhirad doorbidaysi dacwadka muslimiinta dambe wadaana intay dar alle wadeenna xoog bay u socotaa markay xuduuda nafsigii soo gashana waaba la isku qabqabsadaa una muranka bato una way dabacdaa markaanay xadka nafsiga lahayn bay ka xoog badan tahay marka ay leedahay xuduuda nafsiya qodobka saddexaad aan tilmaamaya waxa weeyaan simaatu dacwati al-anbiyaa ee lahayd والالتزام أو القدوة الحسنة انت ردتك وحوشي وحو يوك مغنجري لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يو بصغنتي لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وحي ينضد في الصدق في التقوى في العفو في الحلم في الرحمة في الرفق يعني وحنا ينكبا قينا ضد إياها قموضة ضد القاد بدن وعفس بدن ما هم لين سمتكان إن لو يري أنت أنبياء لو يري أنت إن قرآنك كآخر نقرأ ساحر أو مجنون كذاب مفتر وحا قرآنك كقرآن النبي لو يري متكان لو يري ما هم لين بس هذه إيش اللي نقول يرقبوا واسعون عناه دو ذات كلك هاي راح الله هبيك قمي ميسد دائما متكفوا غيرك أحد له يعني وحلا بهاي وحويان قدوة حسن كاي أما قدوة أنا ينكور رمينا من التزام كان ينكور رمينا وحنا يندك ويرينا داعي الناجح وكيسك مغط ولذلك بان بيد يقول ليك كدا يدك ودعينه اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون حديث ساقرنيسا قرت حديث قال لي واقور ما وقور نبركو كيالو أدقوا هالكاس كمري هذا ترى اللهم اغفر لقومي فإنهم قوم لا يعلمون دنبكو قما هيسو لكن مركا لو قلت ما أورنيسا سأشواتا إلا أدقوا اسكن نبط قبو هالكا جوغا هذا تلقى ودعيسو دبمها مشاكل الدريمي ميس لكن markay ku tumaan ama kii kuugu xigay uu ku garaaco ama uu ku ceebeeyo ama wax ka sheego miyaad cunaysaa mise waxaad leedahay allahumma ighfir liqawmi wa dula wax garanayna idan anbiyadu waxay ahaayeen waxan ay dadka ugu yeedhayaan ay waxay ku ahaayeen qudwa xasana
dad lagaga dayan karo ficilkooda wuxuu ka horreeyay qowlkooda taasaa waxay keensanaysay in la rumaysto waxaan inay dhab ka tahay inaanay dan kale ka lahayn soo marka hore maynu odhan aakhira ku xoog badnayd marka labaadna wixii markuu isaga ka muuqdo waxay arkayaan inuu ficilkoodu dhab ka yahay marka saadiqiin bay ahaayeen sidqi kullu ilaahayna uu run sheega khalqigana uu run sheega dad cabsida ilaahay ka muuqata bay ahaayeen dad naxariista iyo rifqiga ahlu sunna waxay yidhaahdaan wuxuu caan ku ahaa waa arxamu khalqi illaahi likhalqi illaahi bay ahaayeen bay yidhaahdaan halka ay tawaa'ifta kale lagu tuhmayey inay ahaayeen dad dadka dhiba oo ama laaya ama mashaakil u geysta ama kan u geysta taa'ifatu ahlu sunna waxay ku caanbaxday waa kaa inay ahaayeen dad naxariista iyo rifqiga ku caana oo umamkoo dham iyagu hoostooda ku noolyihiin tawaa'ifta kale laguma hoos noolaan jirin xataa maanta tawaa'ifta yaryar ee kristanka ka soo hadhay waa kuwii caalamulislaami u joogay waxa ka dambeeyey waa wixii soo baxay brotestanka gadaashi mucaaradiinta qoladii la odhan jiray qarnigii 17aad wixii ka dambeeyey meelahaas wixii soo baxay أما طوائف النصارى القديمة وإنت عالم الإسلام جوكتا طوائف اليهود القديمة وكوي عالم الإسلام جوكتا وهي يجا هضدتك ونحرسها طلقوا نحن ولان كرو يقول لك مبدأ قد سيئي مسلم كان كواها أما كاثوليك بي هايين يورثودوكس لبدو الله وحيان يجا هي ويقومالي جرين ويحاقوا جرين إذا وحين لنا هاي دعوة أنبياء وحي عانك كواهي صدق هي التقوى حلم هي عفو رفق هي الرحمة هي وحي لمده ولذلك ما إلهي وحينا ليه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وآيات أين آخرينه لكن فعلا حقيقة مدد منا نلش إنما كمتها وحي إلهي القرآن كان قلت المام يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون حاولنا واقعا وحيدا إذن بيالي إننا الصمينين أيها الأحبة الرجل ورقي جامعات كانوا مالين يواؤون إذن كورك حادين لكن وحبانا تحسسين داعي الناجحة وحلقوا يقارنا وحكم هذا بين لانهاي هذا نري الدون ماها وحدوا باهن طهي وحلقوا يقارنا وحويا زاد بدني نسيته داعي الزاد كيسوا معي صحيح بدن سفر كودري ومشقة صحيح بدو باهنطي داعية ناجحة الصحيح هو كي وطن إلهي النبي يسمى كودري محكوي يا أيها المدثر قم فأنذر وكان استدى يوم ليلة كاستوضوب يوم كعودك لكن واحد لو يقول وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر كل هذه الآيات وحي المامية الزاد قاضوا وحي الزاد كقد قال لها يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا والعلس بالغوبي بيا بالين لكن محل له الرئيسي وركا علس نك الرباين وقاضا زاد كان وين وطاه نبي موسى نبي هارون محل غولي فرعون قبطه انه طغى الهي ما وشغين وقوقي فرعون ونين الهي قوقيسه تلمامي فرعون كان قوقي وطغى بالين ومحل زاد لوغا ولا تنيا في ذكري بالهي ولا تنيا في ذكر أنا حسكي يقول هكذا لنا بإلهي إنني أسمع وأرى زادك وتواكى مراقبة الله وذكري إنه الدريمه إلهي سبحانه وتعالى إنه مقل يو أركيه إيه إنه حديد كل لي الله سبحانه وتعالى إنه بطل هذا هو الزاد زاد كاسي هدوك أبويا هذا وحكى لا ديدي تعود العقبة وبعطي النبي محمد العقبة وتمكو يبي شيل ما يسن سواء كان ما تعرف لكم أول آخر هلا يبان لنا دعوة العقبة وبعض دعوة كبة وبعض دعوة كبة ور دعوة الددي ما لا يوبعض إلهي حسك سكوب بدي
hawadani dad aakhiro rumaysan bay u baahan tahay oo aakhiro ku weyntaho adduunku qiimo weynaan agtooda ku lahayn kuwa hadday heshay soconaysaa ama hadduu noqdo project iyo mashruuc la yidhaahdo mashruuca kale wuxuu u baahan yahay intaasoo dhaqaaluu u baahan yahay intaasoo hay-adood buu u baahan yahay intaasoo kale u baahan yahay waa iska mashaariicdii dunawiga aha markaa ilaahay subxaana wa tacaala ambiyadiisii muu odhanin dhaqaalaan idin siinaya ee dhaqaalaha qaato dadku waa idin raacaya lama odhanin dowladnimaa laydiin dhiibaya dowladnimada qaato dadka sanduleeya waxaa lagu yidhi zaadkiinu waa kan zaad ma rabtaan ilaahay ku xidhma zaadkiinu waa ilaahay ku xidhma zaadka rasmiga ah wax kan adduunka bidhbidhkiisu waa iska mataacu dunya waa waxa laga yaaba hadduu ku soo galan inuu mararka qaarkood wax kuu fudaydiyo mararka qaarkoodna inuu fitna kugu noqdaba waxyaabaha dunawiga labadaba way noqdaan inuu fitnaba kugu noqdana waa la arkaa inuu nolosha badh kuu fudaydiyana waa dhici kartaa ama zaadka rasmiga ee la hubo inuu wax tar yahay xaguu wax ka tariyay tan iyo todobada waxa uu wax tar ka yahay aakhirada loo socdo wuxuu kaloo wax tar ka yahay adduunkan aynu joogno marka waxay leenahay daaciga naajixa waa ka zaadkiisa garanaya aan meel kale ku ambanin xoolo iyo magac iyo zaad kale raadine zaadkiisu garanaya sifaadka daaciga naajixa lagu yaqaano waxaa ka mida bay yidhaahdaan xubu lkhayri linnaasi watafani fi lmabda waa qof dadka khayrka la jecel casrigan dambe waxaaba iska badan dadku inay kufaan jecel markuu hebel karaarka weydaarto farxayo leh kii uu hebel ahaana maantu ka dhacay halkaad ka muslimka ka gaalka intuu soo islaamo farxi lahayd muslimka si wanaagsanaada farxi lahayd inaad ku faraxdo muslimka kufa ama muslimka dhibi gaadho waa mashaakil cusub asalku waxa weeyaan xubu lkhayri linnaas dadka inaad khayrka la jeclaato iyo watafani fi lmabda mabda'aaga inaad ku milantid ku dhammaatid culamaa suufiya maxay odhan jireen alfanaau fi llah kutuba suufiya ma akhrideen qofka waxaynu ka rabnaa alfanaau fi lmabda fi lislaam diintiisa inuu noqdo qof ku dhammo laba qisaan idin tilmaamaya wada taqaaniin qisada nebi yuusuf waa la soo dulmiyey walaaladii baa dulmiyey dulmigaasi addoonsi buu keenay gabadh baa sii dulmiday boqor baa sii dulmiyey xabsaa la geeyey xabsigii sanawaad buu ku jiray qof caadiya haddaynu qiimayno waxaynu odhan lahaa qofkaasi waa qof ciilo u dhammaaday qof nolosha intuu soo socdo o dhan la dhibayey waa qofka caadiga ee bini aadamka waxaynu odhan lahay ciil halkii u dambaysuu taagan yahay waa qof aad odhan karto mala hadduu aargoosan karo si unbuu u aargoosan lahaa isagoo sidaasay u yimaadeen kuwii wax u geystay way weliba hortiisa ku caayayeen in yasriq faqad saraqa akhun lah kuwa uu iska cafiyey waxaa laga yaabaa kuwa inaad tidhaahda waa walaaladiiyo dee ilmo nebina way ahaayeen oo dad muslim oo iska cafiyey gaaladii xidhatay muxuu ka yeela kuwa igaba daayo gaaladii xidhatay oo baahan baa u timi oo riyo wadata boqorkiioo le riyadaha lasoo fasiro kii ilaabay waa kii riyada la soo cararay yidhi aanan garanayaan markuu badhaana ku jiray muu xasuusnayn laakiin boqorku markuu sheegu garta waa la soo cararo yuusuf uu la yimi yuusuf cilmu ru'a ilaahay baa baray wuxuu gartay 15 sano caynkaasi inay soo socdaan wuxuu gartay haddaan khitadkaasi la degin in la baaba'aya ma isidhi gaalo waa kuwii ku dhibay hama dhaane hadda u aamu haddaba intaasoo qura waxbaba ha u geysane iska aamu waar iga taga ordodhe waxba idin fasiri maaye maxaa dhici lahaa hadduu waxba fasiri waayo de waxaynu sawiraynaa in abaartu dadka gam ka siin lahayd dad iyo xoolaba inaan waxba noolaadeen
لكن مو أورانينا وحو تجابية ومتى سيدي يبد بالي لحي وحب الخير للناس وحو تجابية دتك سيدي يبد بالي لحي يهو قالا كاسوشا تضبصنا عينك أيالا وحياء بيرتا قابك وكيدية وحياء عنيسا مكبوستا وحكال السنبولة دي سودايا ساو كيدية تضبصنا أبارا كحيقي دونا تضبطا أبارتي الدنبي أيا عني دونتا كدبنا سند برواقا بيدن كحيقي دونا إذا ما خير دل جعلي قصة لماذا أنت الماما يوا مؤمن سورة ياسين مال صدح رسول لقد ديبو يمي وولو صاع الرسائل هيك والرمية وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى نكاسي حلكو دريمية وحل ديميد يا آخره مو يشعرني ورسدح نبال الديدة هذا وحاجات قصعتها هذا مال صدح رسول لقد ديدة ما دعوة كشيء ما ورا الله بس واحد ورانا نساء عثمان باتشوكا مقالة دعوة وصعتها صحيح ما صدح رسول ما لقد ديدة يبو يمي دبعتنا وحولي هاي وردين تقاطع والراحة وعين كان يالا وكان يالا ويدي لين السجينة إلهي وحي نوغا والرمي مركو بلنتي آخرتك يسيدو فكري إفكا سوى الرمي كرتا ما شرتا لمو يعني إلهي باوحوكا والرمي يا مركي نكان إلينتها آخرة قبطي سيدو فكري يا ليت قومي حولي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ألا جعلان لها يقولي تولكي إني قرطان وحال إني معي سياعين كانوا أيدا سلامان بغو أيو ورور قال كي دلي بوحو وروريا إلهي فهم سيا وحنون معاه ويقونا إسلام لها إنك دعي لكم ينقو بدنا ملا وحنوران لها قد كان لي دكو عذاب إف كان لي دكو عذاب صورا الله يتصور يعني وحو فكري يسوي دنتي كاسو خير كلا جعل إذا قفك الداعي مخلص كاي وقفك سيدت كلا جعل محي خير كلا جعل قلبك اللي حالا بتلمام يا وحوية صفات الداعي الرسمي أنبياء أسكو الصفات بيسي والعلم والإخلاص أقول هي طاعت aqoontu waxay tartaa laba shay baan oran karaaba markaynu ka nimaadno cibaadadaada iyo diinkaaga iyo waxaaga inay kuugu asaxayso iyadu dee mabdi aad ku dhawaaqaysaya laakiin min baabi dacwa baynu ka warrabaynaa waxay ka korto waxaa ka mid a hiqatu nnaasi bik dadku inay kalsooni ku qabaan waxaanaad sheegayso waxaa laga yaabaa adigu inaad kelmad xaqa sheegto laakiin cidba aanay dhegaysanin isla intii aad tiri sheekh cismaan cali xuseen hadduu yidhahda in la qaato maxaa u dhexeeya waxaa u dhexeeya sheekh cismaanna sheekhnimay ka rumaysan yihin adna sheekh baana kugu rumaysnay idan waa hiqatu nnaas kalsooni kalsoonida maxaa beeray aqoontaa beerta dadku qofku markuu noqdo dadku ciday ku kalsoon yihiin warkiisa way dhegaysanayaan laakiin marka aanay kugu kalsoonayn wiil yaroo ku buuqayo unbay ku arkayaan walidalik waxay leenahay aqoonta waxay tartaa weedhaadu inay kalsooni dadku ku qabi karaan waxay kaloo tartaa dee inaad adiguna awlawiyaadka garan karto dadka maxaad u horraysiin kartaa ka dhallinyaradii mar qura dadkaba diinta u xambaari buu isdhaa ha wada qaadaane mar qura ma wada qaadi karaya idan waxay ku baraysaa aqoonta rasmiga ah maxaad kala horraysiinaysaa muxuu u baahan yahay inaad maanta u sheegto muxuuse u baahan yahay inaad berri u sheegto maxaa ku sugi kara maxaan ku sugi karaynin muxuu yahay qofkan bukaankiisu ninka dhakhtarka ah dhakhtarba dhakhtarku ka cilmi badan yaanu doonanaa waayo waxaan leenahay wuxuu fahmi karaa dawadu soo dhowayn karaa laakiin ka kale waxa laga yaabaa inuu dhowr tijaabo ku galiyo bal kiniinkan soo cunaad ku soo noqoto oo haddana kaa bedelo mid kale kuu qoro aad ku soo noqoto laakiin haddaad kalsooni badan ku qabto waxa laga yaabaa inaad tidhaahdo
ككواد وكسيما ينتكون بكسته إذن أقامت مركي سفي عن كورا صخبه وحي كان سنسا إن أتقرن كرتوقف كالدوين كالله الرسيني يا كويت إخلاص كنا وحاو عملكم مدكرنا ليا إخلاص عملكم محي مدكرنا ليا خلاص بركة نصاد ضدنا وحوية وحنا إلهي درتي أدو قبطه وحنا مركز قبنا يسوع أنا تكون حسابت من حدود النفس جا أما أنا نفط أدو دافكو يالني تصاليال كوبنا كسيو تتك قلوب تودو إلهي قعنتي سيكو شرته إلهي بقى عنده هداية الله ربه قانوننا أدو مكلا قرنيسيد أدقى وحا هبونك وصارين وحويان عمل كاقيناد مخلص كتاي وحلقا يابا أدو وحا هدا يريسان إيساه إنو يهي وحا رسم إلهي مراكا دالينيا ويل يرى هذا القرآن السكادكت أدو وين يرى مسلم القرآن كودك سالغيا وحلقا يابا كاقا عنتي سين إلهي الدنيا جابكو بدلو وحدعي كرتا كاسي كو أردقاي كو سيدقاي كو وغو شنادو يهي إلهي قاعدتي سكو بدله هذا أدو قوسطات هذا بدأ بدلنا يا ودنا وحبك بدلنا يا وردو قرطة وحدلنا يا الموجود قرطة وحفافة يا قرميس ما ها حل قاد نوع شيء وحفافة الشافعي إنك قرآن كودك محوس الهابط وما لا ينسى إمام الشافعي إنك قرآن كودك أما قال كوتو سني أما كتبتي بلا هاو بلا دينا يرى مسلم وحدك ينبو أركي سواء كما لكن waxaa laga yaabaa inuu kaasi ajarkiisii dhuranayo ilaa maantadatan Bukhari wuxuu dhigay maxaad u malaynaysaa inaan yaro muslimuun buu ahaa Bukhari oo u yimi isagu Bukhari noqon doona isma lahayn laakiin waxaan dareemaynaa inay dadkaasi mala mukhlisiin ka ahaayeen wixii ay dhigayeen ilaahay baa markaa midhahan ka dhaliyay adigu markaa dacwadaada ha ku xisaabtamin Soomaalidu waxay yiraahdaan binaadamku waa indha ku garaadle intan ku hortaagan una ku xisaabtamay ay sooran wadna maxaa soo baxay war waxa soo baxay aad garanaysid waxa laga yaabaa kunka qof oo waxaad u dhigtay hal qof oo yar inuu kaaga faa'iido bato adiga adduunka aakhirada hal mida oo ilaahay subhanahu wa ta'ala shaafici kala ka dhigo ama imaam kala ka dhiga inuu kaaga fadli bato kunka qof aad u dhigaysaa kala dhan inta kale inay cilmigoodu iyaga la dhinteen oo la baabeen waxba raad ba ka hadin waxa leeyahay marka amalkuna shaygaagu macno yeelaya ikhlaaskuna waa amalku muthmir ka dhiga waa waxa midhaha ka dhalinaya amalka aad qabanayso ilaahayna wuxuu ina leeyahay war marnaba ha quusanin amal sameey wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون إلهي يا رسول كسي مؤمن كبوا يا أركبا إلهي والمؤمنون أما كو شوغان نقدان أما كو صوص عدان نقدان إلهي يا رسول كسي مؤمنون تبوا يا أركبا لدي وحا عمل شغين إساء إلهي عالم الغيب والشهادة أنا واضون نقل وحد سميستنا وكاغا ورمبا إلهي فينبئكم بما كنتم تعملون وقتي لا يقبتي واسكندويا فليا كان كو غبغبينيا قضيه فرسماء او كصابسان عصري ولي بو اسبدله وحل laga yaaba wasaa'ish توقيف ما انت بدل wasaa'ish waa wax isbedela وهي بني آدم كنولوشيس way تطورtaa meel qura ma taagna سيدرادي وحابون إذن هنا براتان الوسائل الحديثة ابن آدم كالله قنعيه أما وحلوه شابه أما وحلوه دعيه وحوى لبا وفن فنكو ما هذا كان سومالي دا يشيكتي هستا كما ورميه كلمة الفن في اللغة العربية فنكو على واحد تكنيك أو باحد مثلا
الطباخة وفن سبحان كما قيادة السيارة وفن وحلا برتو كورنا هذا نتام فريستو إلى هذا بريسك سكور حكرس كا بريس يبصل يهيلب يتباندو أنت أصلا سكودرة أنت هذا سكودرة تمام بلين سيرون سكور حكرس محن صوب حيو مش خطو بهي غورما لغساسيلا غورما لغشبا غورما إمسا دقيقة دود بالودا يا غورما بسشا لغدرا غورما هيلب كالغدا وفني كورن غادغا دان غودا غادغو ثيوري كودغو ثيوري دان ميلا لغدغو علامات حسبدو يكو يالين ساسا لو كخيا غادغا marka fooshe koowaad geerka wanka la geeyo geer koowa la galiya كليش كلا قصو يرى دقاقة سليدة لسيا سادر أول مكون قرص هذا ما لينسا دي قاعد الجوديو يعني واحد استوى يبقى هي مركز تدريب إذا مركز علومتي ندم يستان تدريب كان قال هنا تفرسم براتو بنادم كسال الله الله دتك واوين دتك يرير مركز ور عادية شيء يسوي مركز خطبة جماعة شيء يسوي مركز درس عادية آخر يسوي marka aad qof fardiyees kala hadlayso oo sheekeynayso waxa laga yaabaa mid waliba inay kale ka gadisantay marka muxaadara akhriyayso wax waliba inay waxa kale ka gadisan baa laga yaabaa qoradan tadcaamay surtaagto tiraado waan wacdinaya dabeetana aad muqaddamada ka bilowdo kalimadan iyo luqada carabeed waxay ku tahay qawaamistu waxay dhigtay amadu maxay ka garan doontaa yani waxa laga yaabaa inaad أكاديمية سيدي هيدا جامعة وحلوة اللي يشترينا دوّده لكن ده عام مركز الله هذا يالك على جمال بلابه إذا وحوالي بوا فن أباهن إن التدريب كي سبرته مرة ده عمل كربتان إن قبطان تدريبات كي سنقاط صلى الله على نبينا محمد وعلى